jeclahay horaan waxaanu soo qaadanay si aad la socotaan ilaa iyo 5 cashar oo casharkan ka horeeyay. Casharkan waxaanu ku eegi doonaa ugu horeyn dhawaqyada caalamiga ah iyo waxa loo yaqaano wada sheekaysiga. Casharkan hadaynu yara dul istaagno ama aynu guda galno waxaan ku qaada dhigi doonaa waxa kamid ah ugu horeyn waxa loo yaqaano the sound of English and International Phonetic Alphabet oo dhawaqa caalamiga ee loo yaqaano alifbeetada ama aan dhahay calaamadaha phonetiga. Waxa kamid ah calaamaduhu way badan yihiin laakiin waxa fiican inaan group u barano haduu ay baadmo sida aan u qorsheynay. Ugu horeyn xarafkan wuxuu la dhawaq yahay sida tan a oo kale la dhawaq yahay laakiin waa u a oo kale ayuu la dhawaq yahay. waxaan dhihi karnaa hadana markii inta loo fiiriyo waa u oo kalena wuu dhigmi karaa laakiin dhawaq ahaantiisa a ayay noqonaysaa. marka a iyo o inta u dhaxaysa ugu dhawaqan anagu waxaan u qaadanaynaa waxa loo yaqaan a iyo o wax u dhaxeeya ma qabno. marka waxaan ku dari doonaa oo laga rabaa inaad book aad ku qorato oo meel gooni aad ku qorato. waxaan u qaybin doonaa waxa loo yaqaan phonetic alphabet ilaa iyo dhowr qaybood. marka qaybta kan uu ka mid noqonayo kuwa kale oo singalada ah waxa laga rabaa inaad meel gooni ah ku qorato. marka kan wuxuu ka mid yahay single vowels shaqalada wuxuu ka mid yahay maxaa la dhihi jiray ama dhawaqyada shaqalada wuxuu ka mid yahay single ka ah. kuwa kalena maxay noqon doonaan waan u tagi doonaa haduu ay baadmo. marka waxa loogu dhawaaqaa kan sida tan oo kale a oo la kala loogu dhawaaqaa. tusaale hadaynu galno bat dhawaqaas hadaad aragto waa kana waa phonetic bat laakiin cap waa kana saan oo kale u dhigantahay phonetiga. hadaad markan barato kuma dhibi doonto haduu ay baadmo. cap koobka caadiga ah waay. mad dhoobada la qasaami ciidi waxyaabo la isku qaso oo kale waxa loo yaqaanaa mad. marka waa kana waa laba a iyo o inta u dhaxaysa shaqalkeeda laakiin ma heli karno anaga laba a u qaadanaynaa. waa a iyo o inta u dhaxayso laakiin ma qabno waxaanu u qaadanaynaa o laba a. cap wada joodaan waa koobka caadiga ah. mad waa dhoobo. ham waxa laga wadaa markii aad tusaale waxba lagu sheego waxayga ahaa waad dhageysanaysaa qofka inaad ka wargurto iyo in wax ku qanciyo ay noqdaan iyo inaysan noqonba inta way noqon kartaa. oo tiraahdo kaado bishimaha isku hayo ayaa waxa loo yaqaanaa ham waa dhawaq ka soo baxo afka gudihiisa laakiin afka on la kala qaadin soo baxo. ham waxaanu leenahay waa dhawaq ka soo baxo gudaha dhuunta aanan laakiin afka asagoo furan oo soo bixin ayadoo bishimaha isku dhagan yihiin ayaa guuxiisa la maqlaa. tusaale oo kala niri marka ham saas oo kale noqonaysaa waa dhawaq afka ka soo baxay waxa uu riyaaqday oo maad riyaaqan ama kumuusan cajab gelin oo kala leedahay ama qof baa waxa waayo ka warguraysa oo kale. marka ham saas oo kale laga wadaa. aan hoos u raacno tan waxa laga wadaa waa culayska kilowatt markii loo tago xagga culayska markii loo tago intaas oo kiilo oo markii asaaska tan intaas laga wadaa culayskaas tan laga wadaa. intaas oo tan ayaan dejistay intaas oo tan ayuu ahaa. dabcan inta badan maraakiibta iyo gaadiidka inta ku maqashaan aan filaya iyo baabuurta caadiga ah. fan markii raashinka iyo waxyaabaha ay dejinayaan ama meelaha maxaa la dhihi jiray hay'adaha oo kale markii la leeyahay intaas oo tan ay meeshaas geeyeen raashina. fan maxaa laga wadaa waa dhidhil ama ciyaar oo kale. inta badan ciyaarka loo isticmaalo adigana qofka caadiga ah haduu qofka caadiga ah waa loo isticmaali karaa markii uu kaftamayo kale ugu dhadheeraysa naga tagaa la leeyahay. guts waxa loo yaqaanaa mandhicirada. mandhicirka waa taqaanaa dabcan caloosha uu isku saaran yahay wuu laalaaban yahay sida baastadii oo kale. mandhicirkaas isku saaran yaa waxa loo yaqaanaa guts ama waxa la dhihi karaa oo kale maskaxda ayadana waxay leedahay xargab isku xirxiran oo ay isdul saareen aad moodo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay. tan ayadana waxa loo yaqaanaa guts ayadana. love jacayl ayaa loo yaqaanaa. love waa jacayl. money waa lacag. calm imaanshiyo. mar kale aan ku celiyo akhyaarta sharafta leh waxaynu sheegnay waxa loo yaqaano xarafkan lagu dhawaaqayo a oo kale. single waa xaraf single vowelska
wuxuuna ka tirsan yahay phonetic parts oo kale waa laakiin parts ayaan ku dhawaaqaynaa laakiin ayay noqonaysaa cup waa koob mad waa dhoobo ham waa cod ka soo baxo afka gudihiisa dhuunta isagoo guuxayo balse aan afka si toos ah uga soo bixin ee la maqlo guuxiisa ham sida tusaale oo kale anaga markaanu leenahay ama qof aan ka wargurno ama waxaan qancin oo kale hadda iska dhahno markaas ima qancin waay macnaha ham tan waa culays intaasoo tan waa intaasoo tan fan waa dheedheel ama ciyaar gat waa mindhicirada ama lalaabka maskaxda laugh waa jacayl money waa lacag calm waa imaanshiyo bal haddana aynu eegno qaybta saddexaad sida ay tahay good morning waa wada hadal meeshan waa conversation waxa loo yaqaano aynu eegno sida ay wada hadalkan u dhici doono waxaan ugu talagalnay in dhowr qayboodba lagu barto dadku inay horey usii akhriyaan ama ay sii isticmaalaan iyo inay ku bartaan dhawaqa saxda ah iyo maxaa la dhihi jiray qaabka isu raaci doonaan waxaan u qaybin doonaa sida aan filayo si aanan horey aanan inkugu sheegin balse haddaan insoo bandhigayo adinkana waxaan ka caawin doontaa inaad jumladaha luqadda ingiliishka ah si saxa u akhrisaan ood ku dhawaaqdaan ina fududaato laga yaabo midkiin intaan markuu arko inta ka bilaab ilaa geeska kale inuu aga baxo taasna waxay keenaysaa dhawaqaadii inuu halaabo ama uu fool xumaado marka sida ugu wanaagsan baynu isku dayi doonaa inaan kaga faa'iidaysano hadduu eebba idmo waxaan leenahay marka ugu horeyso good morning subax wanaagsan halkaasaan ku ekeenayna tan dambe usoo noqonayna glad to see you inaan ku arko waan ku faraxsanahay good morning subax wanaagsan glad to see you inaan ku arko waan ku faraxsanahay marka aan isku daya bal inaan akhriya markaan mar kale good morning glad to see you good morning glad to see you intii hore ujeeda halkaasaan ku hakaday good morning glad to see you saasoo kale ku wanaagsan tahay laakiin haddaan idhaahdo codkii xoogaa uu isdhex gelaya good morning glad to see you ma garan karti qofku wuxuu yidhi adigana ma wanaagsanaanayo dhawaqaade good morning glad to see you waxaa waayo subax wanaagsan inaan ku arko waan ku faraxsanahay good morning so I am good morning so I am good morning so I am good morning subax wanaagsan so I am anigana sidoo kale sidaad igu faraxsanta anna kugu faraxsanahay so I am anigana saasoo kale ayaan ahay want you come and sit down miyaadan soo gelinoo fadhiisanaynin want you come and sit down miyaadan soo gelaynin oodan fadhiisanaynin marka waxay noqonaysaa marka ama miyaadan soo dhawaanin oo kale wada tusaale qof meel kaaga imaaday ood leedahay soo dhawow guriga soo gal oo kale camal waaye ama daaradda soo gal oo kale marka micnuhu in oo kale inaad isticmaasho waxba ma saa'idinayso laakiin fahamka guud ayaa ka muhiimsan sida isugu macda jumladda markii hal mar la wada akhriyo saasaad ku dareemaysaa tusaale haddaan dhaho want you come and sit down waa laga fiican yahay want you come and sit down I'm sorry but I can't waan ka xumahay laakiin ma awoodo I'm sorry but I can't waan ka xumahay laakiin ma awoodo oo sabab maxay tahay waan ka xumahay haddana ma awoodo I am sorry but I can't aniga waxaa waaye waa ka xumahay inaan fadhiisan waayo laakiin haddana ma awoodo waa ka xumahay mana awoodo inaan fadhiisto I'm sorry but I can't waan ka xumahay ma fadhiisan karo waa la weydiiyey marka sababtuusu qofkan u fadhiisan karin maxay tahay uusan u awoodin why not I wonder why not oo maxaadan u fadhiisanaynin marka haddaan idhaahdo why not I wonder why waa laga fiican yahay why not oo maxaana I wonder why
waan la yaabanahay oo maxaa dhacayna maxaad u diidnay inaad fadhiisato maxaa dhacayna why not I wonder why oo maxaa dhacayna marka in la isku qabto waxaa ka wanaagsan in la kala qayba dhankeeda loogu dhawaaqo oo hakad yar la geliyo why not why not I wonder why waan la yaabanahay oo maxaa dhacay I'm short of time you know I'm short of time tan waynu soo sheegnay I am inta ayaa ka maqan I am short of time waqti yar ayaan haystaa you know waad ogta qofkan waa qof degdeg ah oo meel ka shaqeeya tusaale oo kale and I am short of time waad ogtahay I am short of time you know I am short of time waqti yar ayaan haystaa you know waad ogta adigana inaan waqti haynin adiguna waa ogtahay ay macnaha noqonaysaa well then hagaag what's up maxaa cusub well then hagaag what's up maxaa cusub qof inta ku yimaado oo ku yiraahdo what's up maxaa haysaa maxaa cusub oo kale waa well then what's up maxaa cusub aynu aragna marka well then waana kala goynay well then what's up ma soconaysaa maya waa laga fiican yahay well then what's up maxaa cusub well then hagaag what's up maxaa cusub I would meeshan waxaa ka maqan word wax loo yaqaan word waan u tagi doonaa waxbaa isku dhibin hadduu ilaahay idmo maadaama bilow casharo bilow ay yihiin I would like waxaan jeclaan lahaa tusaale marka intaan ayaan isku qabanaynaa inta ka dambeysana gooni waa isku qabanaynaa saasay ku macdahay I would like to see you waxaanu sameynaynaa intaan ayaynu isku qabanaynaa ilaa iyo inta ka dambeysana ayadana gooni ayaanu akhrin doonaa saas ayaynu ku wacan tahay dhawaqan uu ku qurxanaan doonaa I would like to see your sister waxaan jeclaan lahaa inaan arko walaasha is she in ma ku jirtaa is she in ma joogtaa macnaha saas waay I would like to see your sister waxaan jeclaan lahaa inaan arko walaasha is she in ma ku jirtaa oh no Allah maya she's still at school weli iskoolka ay jirtaa oh Allah no maya she's still at school guriga waxay jirtaa iskoolka weli she's still at school weli waxay jirtaa iskoolka she's still at school weli waxay jirtaa iskoolka anoo jaamacada bisla la socodsiinaya intaynu casharada dambe ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa amaana Allah salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh